ummadda Soomaaliyeed waa ummad boqolkiiba boqol islaam ah. xaqiiqdii in maaragtay maanta yani mas'uuliyiinteennii oo u shaqaynayo dalkoodii dadkoodii markay maaragtay wanaag ayagu ku dhex jiro waxyaalaha qaarkood lagu fasiro aaday dhibaato u leedahay. ummadda Soomaaliyeedna markii dawladnimada dib loo aasaasay waxay aad ugu taxdirtay in maaragtay islaamnimadeedii si gaar ah si xoog leh u ilaalsato. dastuurku waad ogtihiin qodobkiisa labaad wuxuu qorayaa islaamku waa diinta dawladda. diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo dalka Soomaaliya. qodobka labaad wuxuu leeyahay dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnada nabigeena suubnay sallallahu wasallam alayhi. nabidii nabadgelyo naxariis korkiisa ahaata wuxuuna ilaalinayaa dastuurka maqaasida iyo ujeedooyinka diinteena islaamka iyo cadaaladda bulshadeena. walaalayaal anagu oo dastuurkeena kaas yahay qodobka heer hoosadkeena qodobka 75 waad ogtihiin asigana wuxuu qabaa wax aan waafaqsanayn shariicada islaamka. dastuurka dalka heer hoosad golaha shacabka iyo shuruucda kale dalka baarlamaanka lama horkeeni karo. guddoonka haddii loo keenana waa burinaya. guddoomiyaha uu xaq u leeyahay mase qofkii markaas shirka guddoominayo inuu buriyo haddii intaas waafaqsanayn. marka anaga oo intaas dhan maaragtay dadaal loo sameeyey oo aan ummadda Soomaaliyeed matalayno in maaragtay yani waxyaalaha qaarkood yani loo nisbeeyo aadan ugu xumahay dad maaragtay waxaas amal yiraahdaan laakiin bani aadanka lama yaabahayo. rasuulkeena sallallahu wasallam alayhi wa khayru khalqi laha baa la barabuqaamay. waad ogtihiin dad yiraahdeen waa waalin yahay, dad yiraahdeen maaragtay waa kaahin, dad yiraahdeen saas. ilaahay rasuulkiisa marka waxaas markay bani aadanka sameeyeen asigoo og bani aadanka waxay ku sameynayaan oo tusaalinayo yani waxyaalaha nimankaas ay damacsan yihiin yani aayad oo lagu cadeeyay baa jirta oo ilaahay in maaragtay doonistiisa wax hor istaagi kari jirin rasuulkiisana guuleysanayo si kasta dadka qaar ay u nacaan. waad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay yuriiduuna an yudfi'uu nuurallahi bi afwaahihim wa ya'ba Allahu illaa an yutimma nuurahu walaw kariha al-kaafiruun. marka aayadaas waxay tusinaysaa nimankan waxay isku dayayaan in rasuulka maaragtay nuurka rasuulka loola jeedaa inay afkoodii bi afwaahihim bi aqwaalihim hadalkooda inay ku damiyaan oo ay ku aamusiyaan ay danayaan. ilaahayna wixii uu maaragtay doonisiisa ah si kasta gaalada u kacad waxa u nacday waa kii fuliyey oo arrintaas maaragtay ujeedadii ilaahay ugu talgalay uu meeshii ugu talgalay gaarsiin waayo oo waxna ka dhabaynin. marka maalmahan waa yaabnay waxyaalaha aan macquul ahayn badan ilaa aan safarkayga jiray dhaxdan oo hataa shakhsiyan waxyaalaha qaarkood mucaarad adduunku waa dhacaya waa ismucaaradaya laakiin diinta ma noqoto wax maaragtay lagu ciyaaro ma aha iyo maaragtay kaftan gal ma aha. marka aniga waa iska runtii kama jawaabin inaan jawaabana ma rabin anigoo uskunaayo aayadda quraanka suuratul tabaarak nazal al-furqaan aayadda dhahayso anigoo uskunaayo oo ahlul iimaan oo islaamnimadayda iyo iimaankayga aniga isku celinayo waxyaalaha qaarkood yani la sheegayay. aayaddaas waad ogtihiin mu'miniinta markii la barbuqaamo waxaan laga sheego waxaa la yidhaahdaa inay adkaystaan oo aan waxba u arkin. wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi howna wa idaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama. aayaddaas anigoo uskunaayo hadallada laayiga ahayn qof aanba xaasidama ku jirto aanba aqoon la'aan hayso warkooda anigoo dheg u dhegaynin saa uma fiirinaynin. laakiin xeer had waxaan aragnay culimmadii ka hadasho waxyaalo saasa. madaniyaal ilbaanada sharafta leh maanta labadii aqalba waa fadhiinaa mid baa idin cadaynaynaa oo idin ballanqaadaynaa waxa diinta islaamkana waafaqsanayn dastuurkeena iyo shuruucda dalkana waafaqsanayn intaan qabano ma idin horkeenayno. idankan yaan idin shakal idinku gelinin mana dhici doonto. ummadda Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaamba maan matalaynaa. waad ogtihiin dhaqankeena suuban Soomaali markay leedahay waxaa ula jeedaa dhaqankeen oo dhan wuxuu waafaqsan yahay dhaqanka islaamka. marka taasaan anagu sharcino ah sharcigan ugu sharcigan ugu weyn waa quraanka iyo sunnada rasuulka. dastuurkeenana waa idaarigi maamulka wixii looga talagalay oo maaragtay ilaantarada baarlamaanka waa intaas madaxweynaha intaas jiraya intaas way dastuurka lagu daray. shareecadeeni dastuurkeeni waa diinta ilaahay. marka walaalayaal arrintaas shacbiga Soomaaliyeed
يعني شيئا شكل جلينين وحتى أرنتاس وافق سنين نجمع إيمان دونا بإذن الله هذه أبو سنتين أنت سمعت أجداكم مجرين هذا شعبك المثلي إنه الشكل اللي هو أبو ري يعني قلت لك لنا إنه عدينه مرك أجندين واسي وذنينا وحنكسر لوين عيدك أبو محسن وزير كمالي